maanta muuqaalkeennan waxaanu review iyo isbarbardhig ku samayn doonaa taleefanada cusub ee A52 iyo A72 ku soo dhawaada muuqaalkeenna oo dhammaystiran haddaba السلام عليكم saaxiibayaal soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub maanta muuqaalkeennan waxaynu review iyo isbarbardhig ku samayn doonaa taleefanada cusub ee kala ah A52 iyo A72 kuwaas oo soo baxay sanadkan waxaynan ku samayn doonaa insha Allah labadoodaba review iyo unboxing haddaba waxaynu ka bilaabi doonaa reviewga taleefanka yar ee A52 waxaynu ugu dambaysin doonaa taleefanka weyn ee A72 waxbayaan hadalkeed ku farabadin soo dhawaada soo dhawaada mar kale aynu ka bilowno reviewgeena taleefanka koobaad ee A52 taleefankan A52 waxa uu soo baxay March 17keegii taleefankan A52 dhererkiisu waa 6.3 inch balliciisuna waa 2.9 inch xagga qaladiisu ka tahay 0.33 inch culayska taleefankan waa 128 gram aynu nimaadno displayga taleefankan A52 display typekiisa ama nooca displaygiisu waa Super AMOLED Full HD aspect ratio haddaynu nimaadno taleefankan waa 20:9 display size-ka ama cabirka shaashadiisa taleefankan waa 6.5 inch resolution-ka taleefankanna waa 1180 lagu dhuftay 2400 taleefankan A52 shaashadiisa hore waxay ka samaysan tahay Gorilla Glass version 5 ayay ka samaysan tahay shaashada dambana waxay ka samaysan tahay plastic amaba caag ayay ka samaysan tahay aynu nimaadno qaybta kaamirada taleefankan A52 halka dambe waxa uu ku leeyahay 4 kaamiradood kaamirada hore ee ultra wide-ku waa 12 megapixel halka ay ka tahay kaamirada wide-ku 64 megapixel sidoo kale waxa uu leeyahay macro oo ah 5 megapixel iyo telephoto oo ah iyaduna 5 megapixel afarta kaamiroodna waxay ku duubayaan 4K sidoo kale taleefankan waxa uu leeyahay hal kaamirad oo halka hore ah waana 32 megapixel waxayna ku duubaysaa sidoo kale muuqaal 4K ah bal haddaba aynu tijaabino kaamiradihiisa kala duwan ee ah afarta dambe iyo halka kaamirad ee selfie-ga waxaa lagu qaaday sawiraanta caynkana indhahaaga ayaa ku macallina ka bogasho wacan aynu nimaadno qaybta hardware-ka taleefankan A52 storage-isu waxa uu ku yimaadaa 3 nooc maruu yahay 128 GB iyo maruu yahay 256 GB RAM-kiisuna waa maruu yahay 6 GB iyo maruu yahay 8 GB CPU-ga taleefankan haddaynu nimaadno waa 2.2 GHz aynu nimaadno chipset-ka ku jira taleefankan waa Snapdragon 720G aynu nimaadno dhanka software-ka taleefankan waxaa ku jira Android 11 ama Android version-kiisu waa Android 11 UI-giisuna waa 3.1 dhanka specification-ka aynu nimaadno ama taleefankan wuxuu kaga duwan yahay taleefanada kale aynu ka bilowno dhanka battery-ga taleefankan cabirka battery-giisu waa 4500 mAh waana sidoo kale fast charger taleefankan waxa uu leeyahay fingerprint waxaanu ku leeyahay display-ga halkiisa hoose ama waxa ku leeyahay qaybta hore ee taleefanka sidaan xusnayna OB-ga ku jira ama operating system-kiisu waa Android 11 waxaana ilaalinaysa Gorilla Glass taleefankan A52 waa dust proof amaba ma gelayo dhasku sidoo kalena waa waterproof oo waxa aad kula jiri kartaa biyaha in ka badan 30 minute aynu nimaadno dhanka midabada taleefankan waxa uu leeyahay 4 midab oo kala ah awesome black white violet iyo blue waana midabadan kaaga muuqda shaashada haatan inaad fahanteen ma filayaa inta
aynu ku samayno haddaba unboxing taleefankan. ugu horeyntii marka aad sida u soo qaado bogoska ee aad furto waxaad ka helaysaa quick start guide ama hagaha taleefanka, injection pinka oo ah pinka lagu furayo qaybta kaararka, USB cable baad ka helaysaa noociisu yahay type C, waxaad kaloo ka helaysaa adapterkii taleefanka. sidaas ayaad ku haysataa taleefankaagii oo ah midabkii aad u baahnayd. aynu gudubno taleefanka xiga oo ah A72 ahna taleefanka weyn. aynu nimaadno taleefanka A72. taleefankan A72 waxa uu soo baxay March 17. dimensionskiisa haddaynu nimaadno dhererka taleefankani waa 6.5 inch halka balliciisu ka yahay 3.5 inch. qarada taleefankan ama thicknesskiisu waa 0.32 inch. culayskiisuna waa 203 gram. display tapekiisa aynu nimaadno ama nooca shaashadeedu ka samaysan yahay waa Super AMOLED Full HD. aspect ratio taleefankani waa 20:9. display size-ka ama cabirka shaashadiisu waa 6.7 inch ama 6.7 inch. taleefankan shaashadiisa hore waxay ka samaysan tahay nooca muraayadeed ee Gorilla Glass version 3. shaashada dambena waxay ka samaysan tahay ama qaybta dambe plastic. aynu nimaadno kaamaradaha taleefankan. waxa uu leeyahay 4 kaamaradood oo halka dambe ah. kaamarada koobaad waa wide-ka 64 megapixel weeyaan ama 64 megapixel. ultra wide-kuna waa 12 megapixel halka ay telephoto ka tahay 8 megapixel. kaamarada afraad oo ah micro waa 5 megapixel iyaduna, waxayna ku duubayaan dhammaantood 4K. qaybta hore aynu nimaadno taleefankan selfigiisu waa 2 megapixel ama 32 megapixel waana wide, sidoo kalena waxay ku duubaysaa 4K. camera test hadaynu ku samayno taleefankan waxaa lagu qaaday sawiraantan waxaana ku macalina indhahaaga. aynu nimaadno dhanka hardware-ka taleefankan. taleefankan storage-kiisu waxa ku yimaada 2 nooc, maruu yahay 128 GB iyo maruu yahay 256 GB. RAM-kiisuna waxa ku yimaada 2 nooc, maruu yahay 6 GB iyo maruu yahay 8 GB. CPU-giisu waa 2.2 GHz. chipset-ka taleefankan hadaynu nimaadno waxa ku jira Snapdragon 720. specification-kiisa aynu nimaadno taleefankan ama waxyaabuu kaga duwan yahay taleefanada kale. taleefankan A72 baytarigiisu waa 5000 mAh waxaanu ku haynayaa in ka badan 21 saacadood oo xidhiidha. waa fast charger. sidoo kale taleefankan waxa uu leeyahay fingerprint waxayna ku taallaa shaashada halkeega hore. OB-ga ama operating system-ka ku jira taleefankan waa Android 11. shaashada dambe waxay ka samaysan tahay plastic sidaynu soo xusnay, waxaana ilaalinaysa taleefankan ama protection waa Corning Gorilla Glass 3. taleefankan waa dust proof oo ma gelayo dhasku, sidoo kalena waa waterproof oo waxaad ku haysan kartaa in ka badan 30 minute biyaha dhexdooda. midabada taleefankan waxa uu ku yimaadaa 4 midab oo kala ah white ama cadaan, madow, violet iyo blue. haddaynu unboxing ku samayno taleefankan marka aad soo qaado bogoska waxaad ka helaysaa taleefankii oo ay saaran tahay protection. sidoo kale waxaad ka helaysaa quick start guide ama hagaha taleefanka marka aad soo iibsato. injection pinka ayaa la socda oo ah pinka lagu furo qaybta kaararka. USB cable baad ka helaysaa noociisu yahay type C. waxaad kaloo ka helaysaa adapterkii taleefanka. sidaas ayaad ku haysataa taleefankaagii oo ah midabkii aad u baahnayd. aynu ku samayno isbarbardhig haddaba labadan taleefan ee A52 iyo A72. si guud ahaaneed isbarbardhigga waxaynu ka eegi doonaa laba dhinac. dhinaca koowaad waxaynu ka eegi doonaa waxyaabaha iskaga midka yihiin, halka aynu ka eegi doono dhinaca kalena waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin. aynu ka bilowno waxyaabaha isugu midka yihiin labadan taleefan ee A52 iyo A72. dhanka design-ka waa isugu mid ama waa isku qaab. sidoo kale dhanka muraayadda waa isku mid oo labadooduba waa Super AMOLED display
display sidoo kalena waa isku mid dhanka brightness nitka labadooduba waa 800 oo nit sidoo kale shaashada hore labada taleefanba waxay aadanaysaa Gorilla Glass labadoodubana waa full HD dhanka daloolada iyo dhanka fingerprintkana waa isaga mid intaas waa waxyaabaha guud ay isaga midka yihiin labadan taleefan ayse u nimaadno waxyaabaha ku kala duwan yihiin labadan taleefan waxay ku kala duwan yihiin dhanka cabirka ama size-ka sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin dhanka battery-ga oo taleefanka A52 waa 4500 mAh halka taleefanka A72 uu ka yahay 5000 mAh marka A72 ayaa ka battery weyn taleefanka kale dhanka Snapdragon-ka way ku kala duwan yihiin sidoo kale labadan taleefan waxay ku kala duwan yihiin dhanka qiimaha waxaana u dhaxeeya farqi weyn marka la eegayo dhankaas si guud ahaaneed labada taleefan aad ay isku shabaxaan balse haddana aad ay u kala duwan yihiin haddaba adiga ayaa dooran doona mid ka fiican aniguse waxaa kugula talin lahaa inaad iibsato taleefanka weyn ee A72 sababtoo ah isaga ayaa ka fiican sidoo kale A52 kama dhaco taleefanka kale oo waxaynu odhan karnaaba dhanka refresh rate-ka isaga ayaaba kaga fiican taleefanka ka weyn ee A72 halkaas inoo joogdana maanta muuqaalkeena ku saabsanaa review-ga iyo isbarbardhigga labadan taleefan ee A52 iyo A72 halkaas anagu soo gabagabayn doonaa dad jeceshahay muuqaalada caynkan oo kale ha ilaawin inaad subscribe dhahdo kanalka furatana gambaleelka ama jaraska si aanay kuu seegin muuqaalada noocan oo kale anigu waa KALE Cabdiraxmaan iyo halkan waa Somali Tricks oo idin leh intaan ku kulmi doono muuqaalkan xiga amaana Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso nabadgelyo